waxaan oo wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan iyo si walba aad noo dhageysanaysaan waxaad dhageysanaysaan idaacadda Markabley hirkeeda FM 88.8 megahertz waxaadna dhageysanaysaan barnaamijka subax wanaagsan iyo maxaa ka cusub deegaankaaga barnaamijkan oo ka mid ah barnaamijyo iyo fariimo taxana ah oo wacyigelin ah ayaa qaybta afaraad ee saakay barnaamijkan wacyigelinta waxa uu ku saabsan yahay diyaar garowga fatahaadaha haddii uu webiga biyo keeno sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan beeraleyda degmada Baardheere sidee ugu diyaar garoobeen cabsida jirta dhanka kale barnaamijka saaka waxa marti inoogu ah Raage Axmed Maxamed oo ah madaxa xiriirka hay'adaha maamulka degmada Baardheere sidoo kale waxaad ku maqli doontaan ra'yiga dhageystayaasha ee barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinayo anigoo ah Yaxya Cabdirisaaq Soofe dhanka farsamadu waa Qadar Haybe waa markale iyo barnaamijkii subax wanaagsan iyo maxaa ka cusub deegaanada digniin robabka la filayo inay ka da'aan gobolka Gedo iyo guud ahaan wadanka bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 ilaa November ayaa laga cabsi qabaa in webiga Jubba fatahaad uu sameeyo taasoo sababi karta saameyn aad u ballaaran deegaanka Baardheere waa mid si gaar ah u nugul khatarta fatahaadaha soo noqnoqda sidaa darteed waxaa bulshada deegaanka lagu wargelinayaa inay qaadaan tallaabooyin ay kaga fogaanayaan saameynta fatahaadaha waxaan ugu la talinayaa inaad ka guurto meelaha u dhow webiga haddii ay ku muuqato calaamadaha fatahaadaha 2 u guur dhul sare ama meel ka fog webiga 3 ilaasho hantida iyo agabkaaga muhiimka ah 4 feejignow oo la soco fariimaha iyo digniinaha ay soo tabanayaan hay'adaha amniga iyo gurmadka fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyay hay'adda Nabaad iyadoo kaashanaysa hay'adda Action Aid waxaan idiin baahiyay warbaahinta Markabley Baardheere hirkeeda FM 88.8 megahertz mahadsanidin sida aad la socotaan heerka biyaha webiga Jubba ee degmada Baardheere maalinta ka dambaysa waxa uu gaarayaa heer khatar ah taasi oo kordhinaysa fursadda fatahaada maalmaha soo socda dadka ku nool hareeraha webiga iyo dhulka hoose waa in ay foojignaadaan diyaarsadaan inay u guuraan meelaha sare isla markaana ilaashadaan waxyaabaha muhiimka haddaba dhageyste adiga meesha aad ku sugan tahay ma laga dareemayaa cabsida in uu webiga fatahaado keeno haddii ay jiraan maxaa ku qorshaysan barnaamijkan iyo fariinta wacyigelinta ah waxa idiin soo saartay hay'adda Nabaad oo kaashanaysa hay'adda Action Aid waxaan idiin baahiyay warbaahinta Markabley ee degmada Baardheere hirkeeda FM 88.8 megahertz iyo barta aanu ku leenahay Facebook ee Radio Markabley dhageystayaal goordhow khadka telefoonka ayaan idiin furi doonaa si aad warbixin nooga siisaan deegaanada aad ku sugan tihiin iyo cabsida fatahaadaha idinka oo nagala soo xiriiri kara telefoonada kala ah eber 6512 eber 266 ama leelenka idaacadda eber 436 eber 113 iyo telefoonka kale ee Samtelka eber 62581166 barnaamijkan ayaad dhageysan doontaan 7 iyo barka subaxnimo ilaa 8 iyo barka sidoo kale barnaamijkan oo rogaal celis ah ayaad waxaad dhageysan doontaan 2 duhurnimo ilaa 8 iyo barka duhurnimo intaan u guda galin barnaamijka ku soo dhawaada mar kale iyo fariin wacyigelina digniin robabka la filayo inay ka da'aan gobolka Gedo iyo guud ahaan wadanka bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 ilaa November ayaa laga cabsi qabaa in webiga Jubba fatahaad uu sameeyo taasoo sababi karta saameyn aad u ballaaran deegaanka Baardheere waa mid si gaar ah u nugul khatarta fatahaadaha soo noqnoqda sidaa darteed waxaa bulshada deegaanka lagu wargelinayaa inay qaadaan tallaabooyin ay kaga fogaanayaan saameynta fatahaadaha waxaan ugu la talinayaa inaad ka guurto meelaha u dhow webiga haddii ay ku muuqato calaamadaha fatahaadaha 2 u guur dhul sare ama meel ka fog webiga 3 ilaasho hantida iyo agabkaaga muhiimka ah 4 feejignow oo la soco fariimaha iyo digniinaha ay soo tabanayaan hay'adaha amniga iyo gurmadka fariintan wacyigelinta
ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay-adda nabaad iyadoo kaashanaysa hay-adda action 8 waxaan idiin baahiyey warbaahinta markabley baar dheer hirkeeda FM 88.8 megahertz mahadsanidin. haddaba iyadoo ay soo tarayaan cabsida laga qabo fatahaado dhaca ayaa qaar ka mid ah beeraleyda degmada Baardheere waxaan ka wareysanay diyaargarowgooda iyo sida ay ugu diyaargaroobeen haddii ay fatahaado dhacdo. maxamed cabdiraxmaan matow oo ka mid ah guddiga beeraleyda degmada Baardheere ayaan wax ka weydiinay arrimahaasi. gudoomiye matow ugu horreyn kusoo dhawo warbaahinta markabley waxaad ka mid tahay beeraleyda guddiga beeraleyda oo ka mid tahay bal waxaad nooga warantaa fariimaha digniinaha iyo daadadka soo baxaya iyo si aad u aragtaan iyo beeraleyda inay ka diyaar garoobeen in kale. wallahi saan oo daadad waa socdaan arrimahaas oo badan beeraleyda Baardheere hadaan hay saanki oo roobku weynaa saankiis waa socdaan. marka qaabkay uga diyaar garoodeen waxaan ognahay fatahaadii hore in motooro badan beere ay ku waxyeeloobeen beeraleyda ma ka diyaar garoobeen sidee uga diyaar garoobeen? waxaana markay imaanaysid marka kale laakiin waa diyaar garoobeen waa isweydiinayaa roobku inta ku daay iyo suu yahay iyo weyn yahay iyo roob maxaa la sheegay waa wareysi roobka aad ugu fara badan yahay iyo roob laanta. marka waxaad nooga warantaa fatahaad ayaa ka dhacday degmada Baardheere 2023 beeraleyda khasaarihii soo gaaray xilligaasi haddii aad xasuusta dib u celiso. beeraleyda fatahaadaha soo gaaray al'aana lagama kabsanin dhaawacii gaaray al'aana beeraha waa ku yaalaan baadbaas kuway kanaaliyaalkiisay u gooyan waaye shiriyaalkiisay u dilaaceen waaye haddaad dib fatahaad kala imaato waa meeshooday ku noqonayaan beeraha. marka sidee looga gudbi karaa marka caqabadahaasi? caqabadahaas waxaa looga gudbi karaa markii hore in la habeeyo ay ahayd hadda xilligaa la jooga wax la habeen kara ma laha laakiin waxaa la rabay markii hadda oo markuu roobka warqanaa in beeraha baldoosar la geeyo baali la geeyo ilmaalihii ka soo baxeen biyaha in laga xiro oo la kordhiyo meeshii buurkeedu leeyahay wax lagu daro iyay u baahneed beeraha aad bay dayac ay u yihiin. markaasi waa tahay marka si looga diyaar garoobo arrimahaasi maxaad ugu baaqaysaa beeraleyda? beeraley waa iska diyaar beeraley beerihii waa tacban yihiin beeraha hadda afartooda kooni waa boos baa la saaray sarkana boosa baabur soo daldalaya laga keenayay ilaa iyo afgooye oo laga keenayay ilaa iyo balwadiya laga keeni jiray moota la abuuray si loo abuuray mooskii hadda soo bilaabay gacantii horeysay hadday solotaa kolka beeraha hadda biyo uma roona deed fara badanna ma qaadan karaan dhibaato fara badan baa lala kulmaya si kasii daran baa lala kulmaya haddii oo fatahaadihii imaado khasaaraha kii hore hawaalka kabsaday xoogaa beerihii baa soo dhaqaaqeen laakiin haddii soo ziyaaday in oy oo fatahaad kala imaado in dhibaato kale oo kanaysa yaan u malaynaa. waa tahay haddii aad xusuustaada dib u celiso fatahaadii dhacday waxyaabihii kugula yaab badnaa oo saameynta kugu yeeshay weli maskaxdaada aan ka goyn maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah meel weli biyahan gaarin oo biyaha gaareen oo al'aan aan la yaabsanahay sida magaalada Baardheere ay tageen lama yirdood ka kor biyo ay tageen intay kurmaankaasi la soo wareegteen xagga kale soo wareegtay dibkiyo u socday hureena u socday meesha ay gaareen oo fatahaadihii saasa al'aan oo saxdaana ay ka daraysaa. waa tahay gudoomiye matow aad baa u mahadsan tahay. waa hagaag martida barnaamijka ayaan guda geli doonaa balse fariin wacyigelin ah. digniin roobabka la filayo inay ka da'aan gobolka Gedo iyo guud ahaan waddanka bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 ilaa November ayaa laga cabsi qabaa in webiga Jubba fatahaad uu sameeyo taasoo sababi karta saameyn aad u ballaaran. deegaanka Baardheere waa mid si gaar ah u nugul khatarta fatahaadaha soo noqnoqda sidaa darteed waxaa bulshada deegaanka lagu wargelinaya inay qaadaan tallaabooyin ay kaga fogaanayaan saameynta fatahaadaha. waxaan ugula talinayaa 1
inaad ka guurto meelaha u dhow webiga haddii ay kuu muuqato calaamadaha fatahaadaha. 2 u guur dhul sare ama meel ka fog webiga. 3 ilaasho hantida iyo agabkaaga muhiimka ah. 4 feejignow oo la soco fariimaha iyo digniinaha ay soo tabanayaan hay'adaha amniga iyo gurmadka. Fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay'adda Nabaad iyadoo kaashanaysa hay'adda Action Aid. waxaan idiin baahiyey warbaahinta Markabley Baar Dheer hirkeeda FM 88.8 megahertz. mahadsanidin. dhanka kale barnaamijka saaka waxaa marti inoogu ah Raage Axmed Maxamed oo ah madaxa xiriirka hay'adaha maamulka degmada Baardheere. waxaana wax ka weydiinay sida shacabka Baardheere ay ugu diyaar garoobeen iyo baaqa uu dirayo. Raage uu horreyn ay soo dhawo mas'uuliyiinta maamulka degmada Baardheere ee aad ka mid tahay. waxaa jiro digniino soo baxay oo laga cabsi qabo inay fatahaado dhacaan, bal bulshada Baardheere oo aad ogtahay 2023 dhibaatadii ku dhacday maxaad ugu baaqaysaa, maxaad tala soo jeedinaysaa؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. bulshada waxaan ugu baaqaynaa in haddii ay jiraan dad ku dhow goobaha biyo mareennada ah sida webiga iyo togoga waaweyn ee magaalada dhinacyadeeda maro ama magaalada gudaheeda maro in ay ka fogaadaan oo meelo togoga ka fog ay tagaan si ay u badbaadiyaan naftooda iyo maalkoodaba. hadda roobab kama jira deegaanka oo roob ma diin, laakiin culays badan waxaa jira oo webiga biyo fara badan oo uu keenay oo xitaa meelo ka mid ah inuu ay baxaanba ay qarka u saaran yihiin biyaha. marka bulshada waxaan leenahay ha laga diyaar garoobo, ha laga fogaado meelaha biyo mareennada ah sidii waagi horeba ay dhibaatooyinka u dhaceen oo kale inaysan mar kale u dhicin. in si guud loo diyaarsanaado wax walba waa macquul. ayuusan roob imaanin baa laga yaabaa inay fatahaad timaado oo webiga uu biyo keeno. marka bulshada waxaan leenahay ha la digtoonaado, ha laga fogaado goobaha halista ah insha Allah hadduu alla idmo markii uu roob xil roobaadka. waa tahay Raago marka laga tago bulshada Baardheere iyo xaafadaha waxaa sidoo kale jira in Baardheere ay tahay magaalo beereed. beeraleyda qalabkooda sidoo kale uu ku baaba'aa markay fatahaado dhacaan, iyagana maxaad baaq u jeedinaysaa؟ beeraleyda dadka ugu badan oo ay saamayso weeyaan fatahaadaha iyo markastaan oo kale webiga uu biyaha uu u fataho. waxaa dhaca in dalagii uu ka burburo, in maxay ahayd matooradii ay biyo ka qaadaan, in maxaa la dhihi jiray qudaartii oo la jarayo ama markaa dhex yaala beerihii in biyaha ay ku yimaadaan baa inta badan dhacdo. marka si guud naf iyo maalba si loo badbaadiyo dadka inay ka fogaadaan webiga geesihiisa, dadka beeraleydana ay digtooni weliba dheeri ah ay sameeyaan baan u jeedinaynaa insha Allah. waa taa 2023 fatahaad ayaa dhacday, bal saameyntii fatahaad ka dhacday waxyaabihii kugu la yaabnaa oo weli maskaxda aan ka goyn maxaa ka mid ah؟ wallahi dhibaato badan bay geysatay fatahaadaas oo waa fatahaadii boondadii weyneyd oo magaalada u dhaxaysay goysay. bulshadana dhibaato fara badan bay kala kulmeen oo mahadha ay boondadaas kow ka tahay. waxaa kaloo ka mid ahaa in dalagyadii beeraha iyo maxay ahayd dadkii meelihii ay ku tiirsanayeen oo dhan uu burburay, macnaha beerihii webiga saarnaa oo dhan intay cargidoomeen oo macnaha ciidii la qaaday oo beerihii caadiga ah oo la isticmaali jiray oo jiinka ku yaal oo dhan in geedihii inta guurmeen iyo tabiici dadkii waxay beeranayeen oo dhan bacaad uu fuulay oo macnaha xitaa bacaadkii loogu talagalay beeraha kii la isticmaali jiray bacaad aan ahayn oo kale oo meelo kale laga keenay yaa fuulay oo dhibaatada ayadaheeda weli dadka ka kaban la'yihiin. taa marka waxa laga sheekayn kara maaha wixii meeshaas ka dhacay oo waana hadda kulley waa laga soo gudbay. marka mar kale inaysan dhicin dadka ayagoo haddana buundo la'aan ah inaysan ugu darmin in wixii yarka ahaa oo 2 sano u dambeysay ama sanadkii u dambeeyay hadda la yayabay in haddana mar kale aysan dhibaatadaas dhicin oo digtoonaadaan baan u sheegaynaa insha Allah hadduu leeyahay. Raage aad ayuu u mahadsan yahay oo saakay barnaamijka marti inoogu ahaa. goordhow waxaan guda geli doonaa dhanka iyo ra'yiga dhegeystayaasha, balse fariin wacyigelina. digniin roobabka la filayo inay ka da'aan gobolka Gedo iyo guud ahaan waddanka bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 ilaa November ayaa laga cabsi qabaa in webiga Jubba fatahaad uu sameeyo, taasoo sababi karta saameyn aad u ballaaran. deegaanka Baardheere waa mid si gaar ah u nugul khatarta fatahaadaha soo noqnoqda. sidaa darteed waxaa bulshada deegaanka
lagu wargelinaya inay qaadaan tallaabooyin ay kaga fogaanayaan saamaynta fatahaadaha. waxaan ugula talinayaa 1 inaad ka guurto meelaha u dhow webiga haddii ay kuu muuqato calaamadaha fatahaadaha. 2 u guur dhul sare ama meel ka fog webiga. 3 ilaasho hantida iyo agabkaaga muhiimka ah. 4 feejignow oo la soco fariimaha iyo digniinaha ay soo tabanayaan hay'adaha amniga iyo gurmadka. fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay'adda nabaad iyadoo kaashanaysa hay'adda Action Aid. waxaan idiin baahiyey warbaahinta Markabley Baar Dheer hirkeeda FM 88.8 megahertz. mahadsanidin. haatanna haddii aan eegno dhanka iyo dhegaystayaasha iyo raayigooda waa hagaag ay soo dhowow dhegaysta ugu horreeya haddii aan fursadda siiyo adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo xaafadda bal waxaad nooga warantaa digniinaha iyo fariimaha soo baxaya ee ku saabsan fatahaadaha laga cabsi qabo. yaxya aad baad u mahadsan tahay. magacaygu waa Saciid Cabdi Axmed, waxaan ahay bara ka mid ah barayaasha yani deegaanka ka howlgala degmada Baardheere. sanadyada hadda ugu dambeeyey fatahaadaha aad bay yani dadka u dhibaateeyeen, waxayna maasheeyeen oo ay qarqiyeen wixii hanti la haystay sida guryaha, sida agabkii. sidoo kale waxaa dhacday in guryihii laga guuro oo yani ilaa laankan dadkii guryihii ay ka guureen aysan dib ugu soo noqonin, ayaga oo dadka u banaan baxay magaalada banaankeeda ilaa laankan aanan haysanin hooy aanan haysanin. dadka qaarna guryo kira ah ay ku kaliftay danta, dadka qaarna ay galeen kaamamka ilaa laankan aysan soo noqonin. marka dhibaato fara badan ayay daadadka geysteen. sidoo kale waxaa jira agabyo kala duwan oo ay boosha ama toga intuu qaaday webigu ku daray. sida waxaa jirtay dad xamaalata ah oo bajaajyo ku shaqaysanayay. sidoo kale waxaa jirta mootooyin oo noocyada siya koonka ah oo xaafadaha yani maxaa la yidhahdaa toga intuu qaaday webigu ku daray. marka dabcan khasaare weyn ayuu geystay sanadka hadda lasoo dhaafay, sanadadii hadda lasoo dhaafay 2 sano ugu dambeysay. yani dabcan waxaa waaya dhaqaala burbur fara badan ayuu macnaha ay suubiyey. marka dabcan hadda dadka aad iyo aad bay u cabsanayaan oo cabsida ma ka marna meesha. yaxya aniga hadda waxaan kamid ah dadka tuga geeskiisa degan, marka cabsi kama marna. dabcan waxaa waaye dadka hadda waxay dareemayaan cabsi saaid u dareemayaan. marka hadda digniino ayaa soo baxaya, sidee loogu diyaar garoobayaa si aysan u dhicin wixii hore u dhacay oo kale? digniinaha waxaa waaye dabcan digniinaha soo baxayo oo dadka la farayo dabcan way qaadanayaan oo dadka meesha cashir bay ka barteen. marka qof hadda doonaya inuu meeshaas waxyeelo ay kasoo gaarto ma jiro. qof walba hadda wuu isdiyaarinaya qaabku yani waantidiisii iyo u badbaadsan lahaa. iyo sidoo kale naf ayaa lagu waayey sanadii ugu dambeysay, waa isla ognahay. marka digniinaha dadka way u dhega fudud yihiin qaadashadooda, aad bay ugu dhega fudud yihiin. waana filaya taas inay dadka mar walbaba ay ku baraarugaan. sidoo kale waxaa jirta dadka qaar waa iska danyar, ma awoodaan inay mar walba soo guuraan ma awoodaan. marka taasna waxaa waaye xoogahoo waxay u baahan tahay xag macnaha qofka in laga kaalmeeyo. macnaha qofka hadduu guuraayo guridii meel kale guryo kale laga karaysanayo ama meel kale loo banaan baxayo, waxyaabahaas camal qofka in laga kaalmeeyana aad buu muhiim ugu tahay. fatahaadii dhacday 2023 oo buundadii weyneed Baardheere ee ku go'day dad badan ay ku dhinteen, waxyaabaha kuugu saameynta badnaa oo ilaa hadda niyadaada aan ka go'in maxaa ka mid ah? yaxyo waxaa ka mid ahayd dhalinyaro sportis ah oo ilaa iyo 20 ku dhow oo dabcan oo marka ayada yani inay garooni soo dheeleen ayagoo aan filaynin oo boosha macnaha toga goynaya oo si macnaha yani kidisa oo dad boosha ay ku keentay oo biyo fara badan ay ku keentay. dhalinyarta qayb ka mid ah oo meesha naftooda ay ku laatay oo taasa dabcan yaxyo igu layaab badneed oona marka ayada ilaa laankaan xasuustaa oo maskaxdii kusoo noqon. wataa ugu dambeyn ustaad adiga oo mahadsan, si aysan u dhicin tii dhacdo oo kaleeto isla markaana loo diyaar garoobo, maxaad shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Baardheere hareeraha webiga iyo toga aad sheegtay iyo beeraleydaba ugu baaqaysaa? waxaan ugu baaqayaa ilaahay naguma keeno hadday dhacdo waxaan ilaahay ba horta wato hadday dhacdo marka ayada ah dadka inay macnaha yani ay digtooni galaan oo sababtoo ah ilaahay baa noo sheegayo dhahayo kuwii xijrigu yani digtoonidiina haysta mar walba. marka waxaan dadka uu farayaa mar walba inay digtoonidooda yani ay haystaan. maxaa yeelay meeshaan waa tog waayo, tog biyo hadduu keenana ma kala yaqaano. meeshaana macnaha marka ayada hadda ka hore daad yani uu galay iyo ma galin ma kala yaqaano. toga biyo hadduu keeno meel walbuu saameyn karaa.
marka dadku waxaan farayaa haddii roob fara badan oo mihigaan hadday arkaan inaysan macnaha isku adkeynin joogidii iyo goobihii ay ku sugnaayeen oo ay meel badbaadi ay raadsadaan. waa tahay aad baan u mahadsan tahay. aad baa u mahadsantahay. agaag dhegeystaha kale ayaan fursadda siinayaa walaal soo dhowow adigoo magaca ku bilaabayo iyo xaafadda aad joogto bal waxaad nooga warantaa digniinaha soo baxayo iyo sida looga diyaar garoobay xaafadda. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cabdullaahi maxamed sheekhuna gaar ahaan oo xaafadda kulmaan ku nool roobabka niyahow oo la filaayo oo insha allahu billahi kariim ilaahay horta roobka noo keeno laakiin roobabka la filaayo inaan u diyaar garownay fasaado ay wataan la sheegayo marka walaala marka waa tahay marka dadka xaafadda sidee ugu diyaar garoobayaan. اليوم هذه واحد بيوايا والرب وايا مركز ولاية يرادو لسمع لين كرو وأنا أسي ديار جلوده أنت كاربا إنسان رو ديار جلوبين أيام مركز رب كدوي وهالشيء وبنقول نقالي هذا سفر كوالج باران تجي رب كوا ديار جلوني إن شاء الله بالله الكريم إلى مركز أفدي سلام غير هذا وخير في سلام نصيا مركز ديار جلوني ولا المعنى cabdullaahi 2023 degmada Baardheere fatahaad ayaa ka dhacday oo buundadii ay ku go'day dad badan ay ku dhinteen xasuustaada haddii aad dib u celiso waxyaabihii ku galaya badnaa oo maskaxdaada weli aan ka goyn maxaa ka mid ah. niyo maskaxdeedu waxay la yaabannaa intaan dunida noolaa nin weyna maanta konton jir baan nahay waxaa ila yaabannaa Baardheere oo biyo heer baraakooyinkii guryaha laga deganaa oo barfaankahooda biyo gaaraayo waa taariikh nololeedkeeda inta ii dhimanay ahayd marka masiibo ay aafo lagu watay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibadaas aafaas inuu ilaahay naga wareejiyo sanadkan. waa tahay ugu dambeyn beeraleyda dhankooda ka waran siduu u saameeyey fatahaadii dhacday. beera warkooda daa dadii dunyada warkooda daa dadii dunyada baabaa bay galeen. waa tahay aad baa u mahadsan tahay. insha allah walaalnaa. digniin roobabka la filayo inay ka da'aan gobolka Gedo iyo guud ahaan waddanka bisha Oktoobar ee sanadkan 2025 ilaa November ayaa laga cabsi qabaa in webiga Jubba fatahaad uu sameeyo taasoo sababi karta saameyn aad u ballaaran. deegaanka Baardheere waa mid si gaar ah u nugul khatarta fatahaadaha soo noqnoqda sidaa darteed waxaa bulshada deegaanka lagu wargelinaya inay qaadaan tallaabooyin ay kaga fogaanayaan saameynta fatahaadaha. waxaan ugula talinayaa 1 inaad ka guurto meelaha u dhow webiga haddii ay kuu muuqato calaamadaha fatahaadaha. 2 u guur dhul sare ama meel ka fog webiga. 3 ilaasho hantida iyo agabkaaga muhiimka ah. 4 feejignow oo la soco fariimaha iyo digniinaha ay soo tabanayaan hay'adaha amniga iyo gurmadka. fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay'adda Nabaad iyadoo kaashanaysa hay'adda Action Aid. waxaan idiin baahiyey warbaahinta Markabley Baardheere hirkeeda FM 88.8 megahertz. mahadsanidin. aqalta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan guud ahaan barnaamijkii subax wanaagsan ee saakay radio Markabley intaas ayaan ku soo ahmeerayaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay anigoo ah Yaxya Cabdirisaaq Soofe dhanka farsamadu waa qadar heybatan intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin kaga tegaynaa nabadino noolu kulantay amaana Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.